haddii aad jeceshahay safarka inaad dal ka safarto oo aad u safarto dal kale waxaa jira hal dukumenti kaasoo la'aantiisa aadan safari karin haddaba waa keekaa waa baasaboorkaaga maxay dhammaan baasaboorada adduunka isu cabir u yihiin 121 milimitir 88 milimitir qaar ka mid ah baasaboorada waxay ka awood badan yihiin amarada halka qofkii haysta uu ku aadi karo wadamo badan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa 10 waddan ee Afrika ugu baasaboor awoodda sareeya ku soo dhawow channelka shacabweynaha magaciigu waa Ciise Sharuur haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar oo ku soo biir gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaalada xiisaha badan ee aynu soo gudbino numberka 10aad Cape Verde waddankan waxa uu ku yaalaa bartamaha badda Atlantika tirada dadka ku nool waxay gaarayaan 600 kun oo qofkii sita baasaboorka Cape Verdeanka waxa uu ku aadi karaa 62 waddan 41 ka mid ah wadamadaas waa bilaa fiiso 21 ka soo harayna markaad madaarka ka degto aad qaadanaysaa fiisaha number 9 Kenya waa la wada garanayaa waa waddan ku yaala bariga Afrika dadka ku nool Kenya waxay gaarayaan 50 milyan oo qofkii sita baasaboorka Kenyaanka waxaa looga ogol yahay 67 waddan 56 waddan oo ka mid ah waa bilaa fiiso 21 ka soo hartayna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa madaarka ama elboorka 8 Zambia waa waddan ku yaala koonfur Afrika dadka ku nool waxay gaarayaan 17 milyan oo qofkii sita baasaboorka Zambiyaanka waxaa laga ogol yahay 68 waddan 47 waddan oo ka mid ah waa bilaa fiiso 21 ka soo hartayna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa madaarka ama elboorka Malawi waa dal xiran yacni bad lahayn waxa uu ku yaalaa qayb ka mid ah koonfurta Afrika qofka haysta baasaboorka Malawiyaanka waxa uu ku aadi karaa 69 waddan 46 ka mid ah wadamadaas waa bilaa fiiso 23 ka soo hartayna waxaad elboorka ka qaadanaysaa fiisaha numberka 6aad Lesotho waxa uu ku yaalaa qayb ka mid ah koonfurta Afrika dadka ku nool Lesotho waxay gaarayaan 2.3 milyan oo qofka haysta baasaboorka Lesotho waxa uu ku aadi karaa 74 waddan 52 ka mid ah wadamadaas waa bilaa fiiso 22 waddan ee soo hartayna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa madaarka ama elboorka Namibia waa waddan ku yaala qayb ka mid ah koonfurta Afrika dadka Namibia ku nool waxay gaarayaan 2.6 milyan oo qofka haysta baasaboorka Namibiyaanka waxa uu ku aadi karaa 75 waddan 51 ka mid ah wadamadaas waa free visa 24 ka waddan ee soo hartayna waxaad madaarka ama elboorka ka qaadanaysaa fiisaha numberka 4aad Botswana dadka ku nool Botswana waxaa lagu qiyaasaa 2.5 milyan haddii aad haysto baasaboorka Botswana waxaad ku aadi kartaa 78 waddan 54 waddan oo ka mid ah waa fiisa la'aan 24 ka mid ahna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa elboorka numberka 3aad South Africa haddii aad haysto baasaboorka South Africa waxaad ku tagi kartaa 102 waddan 70 ka mid ah wadamadaas waa bilaa fiisa 32 waddan ka soo hartayna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa elboorka Mauritius waa waddan ku yaala qayb ka mid ah koonfurta badda India dadka ku nool Mauritius waxaa lagu qiyaasaa 1.2 milyan qofka haysta baasaboorka Mauritiuska waxa uu ku aadi karaa 100 waddan 100 waddan oo ka mid ah wadamadaas waa free visa 34 ka mid ahna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa madaarka Mauritius waa waddanka labaad ee ugu baasaboor awoodda sareeya Afrika numberka 1aad Seychelles waa waddanka koowaad ee Afrika ugu baasaboor awoodda sareeya qofka haysta baasaboorka Seychelles waxa uu ku aadi karaa 141 waddan Seychelles waa waddan deris nala ah annaga waxa uuna naga xigaa dhanka badweynta Hindiya dadka ku nool Seychelles waxaa lagu qiyaasaa 100,000 qofka haysta baasaboorka Seychelles waxa uu ku aadi karaa 141 waddan 121 ka mid ah wadamadaas waa free visa 20 ka mid ahna waxaad fiisaha ka qaadanaysaa madaarka ama elboorka sida aan ka soo xiganay website-ka rasmiga ah ee baasaboorada passportindex.com qofka haysta baasaboorka Seychelles waxa uu ku aadi karaa Ruushka Shanghai China fiisa la'aan Seychelles waxaa laga ogol yahay inaad haysato
dhalasho 2 waddan oo kala duwan. Kuwani waxay ahaayeen 10 waddan ee Afrika ugu baasaboor awoodda sareeya. Haddii aad ka hesho muuqaalkan, fadlan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtidaada. waxaana samayn doonaa 10 waddan ee Afrika ugu baasaboor awoodda hooseeya. haddii aad ku cusub tahay hanaga ilaawin subscribe iyo inaad like garayso. mahadsanid.